goorsan daawadayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijkii shan dhacdo iyo shaacinta alool ee aad kala socoteen alool media t v qaybtan waxa aan wararka idinku haynaa muxuu yahay hadalka kasoo noqda heshiiskii turkiga sweden iyo finland ee ku biiritaanka nato maxaa ka jira in dhulka ukraine ruushka iyo reer galbeed ku kala qaybsanayaan barnaamijkan baanu idinkaga dhergin doonaa haddii aan laydmo qaybta barnaamijka u dambeysa waa magacyadii daawadayaasha sharafta badan ee mudan in la xuso bal doorkan daawade iska eeg in magacaagu uu ku jiro taariikhdu waa 10 julaay 2022 duca qabayaal mar kale soo dhawaada aynu ku bilowno bilowga dagaalka ruushka ayaa madaxda reer galbeedka iyo Ukraine ay in badan ku andacoodeen in sababta duulaanka ruushka ka dambeysa ee saxda ah ay tahay in ruushku rabo dhul ballaarsi markaasna damac kaga jiro in Moscow ay qabsato dhulka Ukraine markaasna ay la wareegto kulan xamaasad leh oo ay wada yeesheen madaxweynaha ruushka iyo hogaamiyayaasha baarlamaanka muddo ku dhow sanad barkii oo uu dagaalku socday waxay xildhibaanada Kremlinku u soo jeediyeen madaxweynahooda in uu ku dhiirado inuu sameeyo wakaalad gaar ah oo fududeysa in dhulka Ukraine ee la haysto oo ay ku biiraan ruushka fikradan ayaa Putin hore uga ballan qaaday inuu ka hadli doono balse markan baa noqonaysa markii ugu horeysay ee ruushku soo hadal qaado in dhulka Ukraine ee ruushku qabsaday ay si toos ah ula wareegaan hore ruushku wuxuu u haystay gobolka Crimea oo lagaga hadlo luqadda ruushka hadda gobolada bariga ee loo yaqaan Donbass oo uu gacanta ku hayo iyo wixii kale ee uu qabsadaba inta dagaalku socdo haddii lagu daro ruushka waxa adkaanaysa sii jiritaanka Ukraine gobolada bariga daawade ayaa wax soo saarka Ukraine boqolkiiba 65 ka ah taas oo keenaysa dhaqaale ahaan in ay Ukraine lafjab ku noqoto haddii dhulkaas lagu daro dalka ruushka madaxweynaha Vladimir Putin ayaa bulshada ruushka iyo siyaasiyiintooda hore u sheegeen in uu u qalmo in boqor laga dhigaba maadaama uu soo celiyay bay dhaheen sharaf iyo dhulkii ka maqnaa ruushka dhulkaas ayaa lagu turjumay inuu yahay dhulkii midowgii Soofiyeed oo burburkii midnimadooda kadib lagu kala baxay balse hadda uu madaxweynaha ruushka iyo xukuumaddiisu ay si weyn ugu raad joogaan waayahay 2 toddobaad kadib markii la isku raacay in la qaado diidmada heshiis jabinta ee Sweden iyo Finland ee ku beerista ururka ciidamada ee NATO madaxweynaha Turkiga ayaa ka digay in Ankara ay weli xanibi karto geedi socodka haddii labada wadan ay ku guuleysan waayaan buu yiri inay si buuxda u fuliyaan qodobadii ay ku heshiiyeen Recep Tayyip Erdogan ayaa xiritaankii sharmada xeeska isbahaysiga NATO ee Madrid ka sheegay in heshiiska 10 qodob ka kooban ee lala galay lamaanaha waqooyiga Yurub uu guul u yahay Ankara oo uu ka hadlay dhammaan xasaasiyadii amaba baahiyahii Turkigu uu codsanayay in wax laga qabto waxa uu si gaar ah Arabka ugu adkeeyay in la qanciyo dalabkii Turkiga ee ku aadanaa Sweden iyo Finland in loo soo gacan geliyo tuhmanayaasha argagixisnimada ee xiriirka la leh kooxaha Kurdiyiinta ah ama shabakada wadaadka dibadjoog ah ee lagu eedeeyay afgambiga dhicisoobay ee 2016 ka dhacay dalka Turkiga laakiin Erdogan waxa uu intaa ku daray in haddii labada wadan waa Sweden iyo Finland ee waqooyiga Yurub ay ka tanaasulaan ballamihii ay qaadeen baarlamaanka Turkiga uu diidi karo inuu ansixiyo heshiiskii la gaaray kadib noqoshada NATO waa in ay si rasmi ah u ansixiyaan dhammaan 30 dal ee xubnaha ka ah taas oo mid walba siinaysa xuquuq ka hortag ah buu yiri dalabka Turkiga ee in loo soo gacan geliyo xubnahaas argagixisnimada ku lugta leh ayaa ah arrin aad u cajiib iyo xasaasi ah waxaynu ognahay in reer galbeedku ay ku shaqaystaan dad badan oo ka tirsan wadamada ay ishayaan kuwaas oo ay siiyaan magangelyo siyaasiyeed haddaba haddii xubnahan Turkiga loo dhiibo waxa si cad taasi u jibinaysa bahadii reer galbeedku wadamada qalalaasaha ku gelin jireen hadhowna ay madaxda iyo siyaasiyiinta u soo bandhigi jireen siismada albaabka baxa ee loo yaqaano magangelyo siyaasadeed
arrintani waxay walaac weyn ku abuureysaa siyaasiyiin kale ee magangelyada ku jooga wadamada reer galbeedka iyo kuwa hadda xidhiirkala lahee rajeynayaba haddii kuwii hore loo marti qaaday dibadda lasoo dhigo. dhanka kale turkiga ayaan aqbali doonin sida uu sheegay madaxweyne Erdogan in aanu yeelin wax ka yar qodobadii lagu heshiiyey. waxaa hadalka madaxweynaha keenay in reer galbeedku isku dayeen ama ay tijaabiyeen in codka xubinnimada NATO la qaado oo hawshooda laga farxasho inta aan Sweden iyo Finland fulin qodobadooda, taas oo Erdogan sheegay in aanay macquul u noqonayn oo ay tahay sir isaguna yahay nin ka da'weyn nin la siro buu yidhi. waxaa si weyn haddaba loogu dheg taagayaa bal qaabka Sweden iyo Finland ay u dhaqangeliyaan qodobada heshiiskan danta weyni ay kaga xidhan tahay. wixii ka soo baxana waynu ka wada socon doonaa haddii alla idmo. haddana daawadayaal bal aynu u gudagalno. waa 5tii magac ee ka mid ahaa daawadayaasha sharafta badan ee aanu xusi jirnay. taageerada daawadayaashu kuma koobnaa 5tan xubnood. 5tan waa 5 uun aanu ka soo qabanay dadka boqolaalka ah ama kumaanka kuun ah ee daawada barnaamijyada ee aanu maaragtay ka soo xullo. waayahay idinkoo dhammaantiin raalliya magacyada haddaynu bilowno. maxamed abubakar shuute, aad baad u mahadsantahay maxamedow. maxamuud fadhig gadac aad baad u mahadsan tahay. ibnu saacid gaalti aad baad u mahadsan tahay. cali ducaale nin magac weyn, mahadsanid. xamdi cabdulkaadir xamdi, mahadsanid baanu ku leenahay. iyo sidaan sheegay kumanaanka kun ee kale ee na garab taagan. hadda dadka sida tooska ah mar walba joogtada ahee barnaamij walba macquul tahay in magacooda kusoo noqnoqdo sida najax oo kale waa madaxa sheerka la odhan karaa. barnaamij walba sheerta waa magacaas waana hor yimaada. sida jawi caato oo kale. jawi caate saaxiib aad baad u mahadsan tahay. su-aashii maalinta dhowl aadna weydiisay waxaa tii 5 qodob 7 qodob ha laga dhigo. marka waa weli si fiican umaanaan fahmin. fadlan kusoo noqo haabta oo ama noo sheeg bal si furan qorshaha sidaynu 5-7 qodob uga dhigi karno. waayo barnaamijka hadduu dheeraado nuxurkii baa lumaayo oo dhadhankii baa ka tegi kara. marka amaba dhanka fariimaha si toosa noogala soo xidhiidh elen hadda waynu iskuma cusbin dhammaantiinba aad baad u mahadsantihiin. waxaanu idin leenahay ciid mubaarig ciid mubaarig ciid mubaarig. ciidan ciideedana ilaahay bashbash iyo barwaaqo haynagu gaadhsiiyo. keliya kotonkii keyna wax yar baa inooga dhiman ee ku dhiirada oo sheer gareeya aynu markiiba gaadhno oo aynu hadafkeena labaad ee 50 iyo wixii ka sarreeya aynu u gudubno. soo maaragtay taageeradu iyo ducaduba waa dhankiina. waxaan rajeynaynaa inaad xogtaa barnaamijka aad wax badan kala baxdeen. inta kulanka xiga aynu ka kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaana allah.